khaybar dagaalkii yuhuuddu markuu dhacay kadib ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nimankan ka gacan sarreeyey ayay yuhuudi waxay isku dayday inay qaab kale nebi maxamed u dilaan oo ah in la sumeeyo dii dagaalkii la iskaga celin kari waayey dee dagaalku yaryarays male qaab kaleba waa loo geli karaa in laga takhalluso dabeetana neef adhiya baa loo soo shiilay sun baa lagu soo daray waa loo keenay halkuu jeceliyey baa la yidhi oo waxay idhahdeen diraaca dhudhunkuu jeceliyo halkii baa loogu sii badiyey markuu hilibkii goostay uu dhudhunkiis kor u qaaday ayaa loo waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam ama uu afkaba geliyey baa loo waxyooday inay sumaysantay deetana uu iska tufay yuhuud buu u yeedhay ijmacuu ilaya man kaana haahunaa min alyahuud wixii meelahan jooga yuhuuda bal isugu yeedha buu yidhi waa loo yeedha markay yimaadeen buu wuxuu yidhi haddaan wax idin weydiiyo run ma ii sheegaysaan yuhuuday muu odhan gumaada qoladii mu'aamarada dejisay wuxuu nabigu ku leeyahay war haddaan wax idin weydiiyo ma iga jawaabaysaan haa bay yidhaahdeen run ma ii sheegaysaan buu yidhi haddaan wax idin weydiiyo haa bay yidhaahdeen wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam man abuukum yaa aabihiina yaa ku abtirsataan waxay yidhahdeen fulaan magac bay sheegeen wuxuu nabigu yidhi bal kadabtum bal abuukum fulaan ayuu nabigu yidhi waa beentiine reer hebel baa tihin ma tihidin hebelkaa sheeganaysaan markaase waxay idhahdeen run baad sheegtay waa kuu been sheegnee kaa aad sheegtay baanu ku abtirsannaa markaasu wuxuu nebigu ku yidhi waa run ma ii sheegaysaan haddaan wax idin weydiiyo waxay idhahdeen dee haddaanu been sheegnaba waad garan doontaa sidaad iminkaba u garataye waadna weydiin kartaa wuxuu ku yidhi man ahlu naar naarta ayaa gelaya buu nebigu ku yidhi markaasay waxay yidhaahdeen annagaa in yar gelayna dabeetana idinkaa nooga dambaynaya yuhuudi waxay rumaysan yahay afartankii cashe ay debiga caabudeen iyo waxaa un iyaga la naarayo laakiin dadka kalea markaa gelaya iyaga markay ka soo baxaan afartanka casho waxay yidhahdeen annagaa in yar gelayna laakiin idinkaa nooga dambaynaya markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhsa'uu fiiha wallaahi laa nukhlifukum fiiha abada ku hooge ilaah baan ku dhaartay inaanan idinka dambaynayn buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war haddaan wax idin weydiiyo run ma ii sheegaysaan buu ku yidhi waxay idhaahdeen haa abalqaasimow wuxuu nebigu ku yidhi war neefkan adhiga ay soo samayseen sun ma ku darteen neefkan ma sumayseen markaasay yidhaahdeen nacam haa sunta waa ku darra wuxuu yidhi maxaa ugu darteen maxaa idinku kalifay waxay idhahdeen waxaanu rabnay haddaad beenaalo tahayna inaanu kaa raaxaysanno dee haddaad nebi tahayna kollayba waa laguu sheegi lahaa yani waa si ay uga baxsadaan uun laakiin iyagu waxay isku dayeen muxaawala inay nebi maxamed dilaan calayhi salaatu wasalaam idan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaal badheedha oo lagu soo qaaday dil badheedhoo la isku dayay wuu cafiyey kuwii 19 sano la dagaalamayay intuu yimi wuu cafiyey kuwii sumeeyey intuu yimi buu cafiyey kuwanuu cafinayaa ma aha muslimiin u fiirso siyaasa alkhaarijiya baan ka warramaya kuwanuu cafinayaa ma aha muslimiin waa yahuud iyo mushrikiya alcarab weeyaan ma aha dad muslimiina kama warramayno idan qaacidada nebi maxamed ee akhlaaqiyaadkiisa ku saabsane waxay ahayd xadiidkii bukhaari aan iswarinayey man taqama linafsihi abada nebi maxamed wax isaga la gaadhsiiyey weligii ma aargudanin yacni ariiqatuh fii xalli alqadaaya almushkila hadday isaga ku saabsiisan tahay waxay ahayd maxay alcafu la almusaalaxa wala almuxaakama waxaa ariiqo isaga asal oo ahaa maxay inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cafiya dadka oo iska dhaafo idan ayuha alikhwa waxaynu leenahay cafigu waa mas'ala asal ka ah reconciliation methodska ama qaabka mushkilaadka loo xallilo oo ugu horeysa baan leenahay saddexda dariiqo ee ay dadka muslimiinta loo jeeday inay maraan waxa ugu horeeya masalat alcaf oo ah qadaayaadka fardiga ah iyo qadaayaadka siyaasiga ah iyo qadaayaadka dowladda fi siyaasa alkhaarijiya ku saabsan iyo qadaayaadka siyaasiga ummadda fi siyaasa daakhiliya ku saabsan intaba waa lagu xallin karaa mushkilaadkooda in la iscafiyo bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baraya ama qur-aankaba ilaahay wuxuu inoogu waxyooday
bini aadamka maxaa ugu adaga kala gaadha waxaa ugu adaga kala gaadha waa dil socankaa maaha ilaahay wuxuu inooga warramayaa fii suurati albaqara marka dilku dhaco waxyaabaha furan maxaa ka mid ah dilka sharcigu wuxuu ka waajib yeelay maxay alqisaas alqawad socankaa maaha qofka in qofka loo soo qabto laakiin soomaalidu waxay u fahamtay qofka marka la soo qabto in la dilo qofka loo dilaa shareecada bay leeyihin shareecadu sidaa maaha shareecadu waxa weeyaan in qofka loo soo qabto laakiin isaga khiyaaraadka la weydiiyo marka ciddii dembiga loo geystay khiyaarka la weydiiyo oo khiyaarka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inuu odhan karo ha lay qisaaso soo qofkaygii ma dilin ha loo dilo waxaa khiyaaraadka ka mid ah inuu yidhaahdo ha la sii daayo oo waan cafiyey saa culamada badh ku tageen oo aan waxba weydiin waxaa khiyaaraadka ka mid ah inuu tanaasulo la yidhaahdo dilka ha laga daayo laakiin compensation ha lay siiyo mag baan qaadanaya oo boqolu yar yahay iyo wixii ka sarreeya lagu heshiiyo mag ayaan qaadanaya laakiin waxaan ogolahay maxay inaan la dilin ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay iyadoo arrintaa looga warramayo faman cufiya lahu min akhiihi shay فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له ننكي لوردا فمن أخيه دلكي ولالكي يعني وحلت المامية ولا لماذا إن أنا يولقوا إن حتى يدو دل داعي ولا لماذا ضدك مسلمين إن أنا يولقوا إن يدو دل داعي ننكا لقى عفية بالليا هي دلكي ولالكي وجيستي وحكم ده ها فاتباع بالمعروف فعلى العافي اتباع إليه بالمعروف قفك وحعفيي وحكركي سسارا مركا إنه كان كود دبقة لسي معروفة هادو مقادنا يسير رسمي معروفة سماء كيل عفيينا وحكركي سا وأداء إليه بإحسان كيل عفيينا إنه وحي لقى عفيي مكتي وسكبحيه ذلك تخفيف من ربكم بإلهين يعني آيات قرآن وحي تلماميسا dhiiggu inuu ka mid yahay wax xataa soo hoosgeli karaa masalati alcafu dilka iyo dhiiggu inuu ka mid yahay waxay dadka muslimiintu ku xallili karaan inay iscafiyaan waxaa qur-aanku ina baraya waxa laaliya waxa dhiig xataa ka hooseeya nafta laysu geysto وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كسوا شرعي لي وحال لي مركا فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق نك صدقة دايستا محو صدقة دايسانيا وحي لو جيستي أي فمن عفا نك أقبله dhegtii laga gooyay inaan dheg loo gooynina yidhaha iska sii daaya dilkii loo geystay inaan waxba loo dilina yidhaha iska sii daaya ama aqbala inuu qaato compensation mag inuu qaato diya inuu qaato oo ka tanaasulo maxay qisaasta uu ka tanaasulo fahuwa waxa la yidhi kaasi faman tasaddaqa fahuwa kafaaratu lah isagay dambi dhaafutay kafaara liljani ayay u tahay oo waa laga cafinaya ولذلك أنس بن مالك وحو سو أرورينيا حديث أبو داود النسائي ابن ماجه بس سو صارين شيخ الألباني الصحيح قلت الماميو قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو ما نرقب لي النبي عليه الصلاة والسلام الله صو بندقي أرن قصاص كسابسا دل ليسو هايستو ama qisaas kaloo la isu haysto oo nabiga loo keenay ilaa iyo marka hore wuxuu codsaday war hal iscafiyo qofkii wax loo geystay inuu wax cafiyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam codsaday yani waxaan leenahay muranka dhaca turuqa lagu xallilo waxa u horeeya طريقة العفو ha noqdo dil ha noqdo isku day dil ha noqdo qadiyad siyaasiya ha noqdo siyaasa khaarijiya ha noqdo siyaasa daakhiliya ha noqdo cadow iyo muslim wax u dhaxeeya ha noqdo gaal iyo muslim wax u dhaxeeya yahuud iyo muslim mushrik iyo muslim ha noqdo muslimiin dhexdeeda intaba waxaynu tusaale ka keenay quraanka ah iyo sunnada saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam